jiritaanka Somaliland ayuu halgam. Somaliland بلادنا نحبها نعشقها بالأرواح نفديها. jinsiyadiisa Soomaalinimo ayuu ku faana. Somali baan ahay, Somali baan ahay, diridaba ana leh, gaarisa ana leh. waxa lagu ciilay xadhig iyo caburin. maxallaygu xidhaya xagtir layga dhigaya ee lay xanibaya oo lay xaganaya. laakiin xabsigu ima hayn karo qalbiga iyo maskaxdu xor baan ka ahay qalbigayga maadaama uu xor yahay iyo maskaxdeedana. dadka uu wax u qabtay xataa madaxweyne waxba uma qaban. kuwa waalan ee uu u gurmaday. halkan ayuu ku xidhan yahay geedkan jirridiisa ciid buu ku cunayaa lug baa go'an 20 sannadood ayuu ahaa xanuunka dhimirka. kuwa baahan ee uu caawiyay. iyo kuwa xanuunsanaya ee uu caafimaadka la doonay. wanaagga uu sameeyay ee uu ku caawiyay boqolaal qoys weli dawladdu may dhiirigelin. taa beddelkeedan xadhig iyo ciqaab ayay uga dhigtay. waddankayga xoog badan xeelaad u jecelahay, waddankayga xoog badan xeelaad u jecelahay, laygama xigsanayay anjir baanu qubayaa. boolisku waxay u geysteen gafaf sharciga ka hor imanaya. inanbuu dhacay inantii waxay mooday tuug dabeedna ina yar baa yidhaah lagu cabdimaalig ha ku qaylin annaguna waynu karsinayn inta badhada qabatay ka tuuraysa. waxaa la soo xidhay iyadoo aanay cidina soo ashkatayn. waxaa la soo xidhay iyada oo waaran maxkamadeedaan la haysan. waxaa la baacsan jiray waddooyinka. cabdimaalig oo la eryanayo ayaan annay inankoo maraar dilaacayo mashan awal aan xadhiga sheegaysa hadduu xagayga u saarano maanta hadduu xagayga u saarano waa badbaadin lahay. askarta eryanaysayna waxay ku leeyihiin anu wax kama sheekayn karo faqasiba badmaydiisa markaasee loo eryanayo. hal abuurihii barnaamijka kaalmee kuwan ayaa la leeyahay isaga maanta kaalmee kan. madaxweyne siida waan ku baryayaa siida madaxweyne wariyaha siida. waxa waayey uu ooyaya 200 qof oo waalan oo xanuunsanayay oo uu khayr uga shaqayn jiray kuwa ku saamax hadduu wax sameeyo baanka waxbuu dhigtay credit buu leeyahay. kreditkii uu lahaa in la eego marka la isu jaro ilaahayba xasanaadka iyo dee sayaad qofku sameeyo waa la soo eega. waad ogey kii haddiiba koroo yahay Itoobiya ka dhacaysay waa ninkii keliyaha ee suxufiga ahaa ee ka hadlayay buu ahaa ee gurmaday markaa nin la dhayalsan karo maaha. ninkaas wuxuu leeyahay mudnaanshiyo in xuquuqdiisii loo soo celiyaan. muddo badan hadda waa xukunnaa intaa hadha ilaa cafiyo oo madaxweyne waxaanu ku leenahay ilaahay ha ku cafiyo عفس أخي ترى 4 jeer ama 6 jeer baan warbaahinta go'an inta jeer aanu hadalay waxaanu madaxweynaha Somaliland ka codsanay madaxweyne ninkaas uu figaa ee samafalaha عفس أخي madaxweyne عفس أخي qof waa la diidi karaa laba waa la diidi karaa toba waa la diidi karaa laakiin madaxweyne waxa leenahay haddaan gobolkii tog dheer naga aqbal arrinka maanta aan ka hadlayno ninka wariyaha ee samafalka waxa naga banaanaday gaaf weyn waxa naga dhindhaaday wax badan tabaal khayr badan baa naga maqnaaday.